weli waxay noo socotaa barashadeennii financial accountingka haddaba aanu taxliilino marka kan si aan u ogaano transactionkii. Let us analyze some transactions for Winstar Lawn Care Service. Kambaniga kan cawska jara ee cawska muxuu beeraha meelaha xadiiqooyinka ama gardenska ka jara ee mashiinka u samaysay ayaanu tusaale ku qaadanaynaa. isla markaa waxaanu analyze garaynaynaa transactionka uu samaynayo kambaniga kan. On May bisha May kowdeedii saad arkayso bisha May kowdeedii 2006 Salman and his family invested waxay investigareeyeen 8,000 in Winstar Lawn Care Service. kambaniga kan waayo waxaan doonaynaa markan inaanu fahmno sida accounting equationkii aanu soo baranay sida ay u effecti garaynayaan ay u effecti garaynayo dhacdooyinka maaliga ee dhaca. haddaba waxaan halkan ka qaadanaynaa markaa dhacdada tan maaliyadeed ee kambaniga kan ka dhacday uuna sameeyey ninkan Salman la yiraahdo. marka on May bisha May kowdeedii 2006 Salman and his family waa asaaskii kambaniga and his family kambaniga iyo asaga iyo familigiisii waxay investigareeyeen 8,000 in Winstar Lawn Care Service. kambaniga kan la yiraahdo ee kambaniga Winstar Lawn Care Service waa kambani serviceka ka shaqeeya ee cawska beeraha ka gura ee beeraha yani xadiiqooyinka weeye ama gardenska. marka waa meelaha yar ee gardenska la yiraahdo ee dadka ay fariistaan ay ku qabowsadaan ayuu cawsaha ka jira beeraha yaryar ee villooyinka dhexdooda ku yaala. haddaba kambaniga kan serviceka ah waxaa lagu aasaasay 8,000 marka aan received marka waxa ay share ahaan u heleen oo share ahaan loo siiyey 800 oo share. macnaheedu waxa weeye shares of stock waa 800 macnaha wuxuu noqonayaa halkii share waa $10. haddaba received 800 shares of stock. marka familiga kan Salman familigiisii ayaa lacagta ku investigareeyay kambaniga. haddaba kambanigii marka balance sheetkiisi sidee buu noqonayaa? balance sheetkii baan diyaarinaynaa. transactionka ugu horeeya ee dhaca balance sheetkii marka wuxuu noqonayaa sida tan. waxaa inagu soo kordhay asset cash ayaanu qoranaynaa oo 8,000 waayo waxaa inoo soo kordhay waxaa maadaama aan maalgelin samaynay keeshkii ayaanu lacagtii ku shubannay. keeshkaasi marka wuxuu masalayaa bangiga iyo keeshka noo yaala kambaniga intaba uu masalayaa. marka keesh waxaanu haysanaa 8,000 marka garabkii la midka ahaa si equalitygii loo ilaaliyo oo sinaantii financial positionka kambaniga loo ilaaliyo waa in la helaa dhankii kale oo ah waayo hadda weli ma jirto wax la yiraahdo liability. saa darteed waxaa toos u imanaya owners equity oo ah 8,000 marka cash waa 8,000 capital stock waa 8,000. keeshkii wuxuu masalayaa assetkii kambaniga ayuu masalayaa 8,000 waxay masalaysaa owners equity waa capital stockii ama sharekii capitalka ee ay bixiyeen Salman iyo caa'iladiisii. haddaba balance sheetkaadii yani formkan accounting formka wuxuu u muuqanayaa sida tan. haddii aad doonayso marka report form waad isticmaali karaysaa oo waad isdaba dhigi karaysaa. processka kale noogu xiga on May 2 bisha May labadeedii Salman purchased Salman wuxuu soo iibiyey a riding lawn mover mashiinkii cawska jarayay ayuu soo iibiyey. marka waxaa inagu soo kordhay tools and equipment qalab baa inagu soo kordhay. marka labada waa la israaciyey accountiyada abuuridooda hadba waxay ku xiran tahay ninka accountantiga kambaniga ka ah qaabka uu u design gareeyay. marka tools and equipment account la yiraahdo ayaa inoo soo kordhay oo 2,500 hanti ah qalab gaaraya qiimihiisa 2,500 oo hanti ah ayaa inoo soo kordhay.
wax capitalkii iska bedelay ma jiro waayo cash ayaanu ku iibsanay maadaama cash aanu ku iibsanay cashkii ayaa nuqsaamay waayo hantidii halkan bay ka baxday halkan unbay soo gashay waayo waxaanu haysanay 8,000 ayaa 2,500 ka baxday marka assetkeenii weli waa sidiisii waa 8,000 laakiin wuu kala qaadmay oo wuxuu u kala baxay cash iyo tools and equipment marka waxaa dhanka ka soo horjeeda weli waxaanu ilaalinaynaa the equality of the accounting equation markaas assetiskii waxa uu la mid yahay owners equity saasoo kale totalkii halkaa ayuu kugu tusayaa mar waliba waayo labada total mar walibana waa in ay isla egyihiin waayo balance sheetka qaab dhismeedka uu dhisan yahay ayaa sidaa ah mar waliba assetiska wuxuu la egyahay liabilities oo lagu daray owners equity haddii aadan haysan marka liabilities sida hadda xaalkeena uu yahay wuusa iman doonaa waxaad ku kaaftoomaysaa balance sheetkaasi balance sheetkaagii qaabkaasi On May 8, Salman purchased a 15,000 truck gaari wuxuu soo iibsaday $15,000 ah Salman paid Salman wuxuu bixiyay 2,000 oo down in cash 2,000 ayuu down payment cash isla markiiba ku bixiyay meesha and issued a note payable inta kalena wuxuu u qoray kambiyaale ayuu qoray for the remaining amount inta amountiga kale ee haray oo ah 13,000 haddaba muxuu ka bedelay accounting equation kaadii dhacdada maaliyadda ee dhacday waxaa inoo soo kordhay asset hanti ayaa inoo soo kordhay economic resource ayaa inoo soo kordhay ama waarid dhaqaale ama hanti dhaqaale ayaa inoo soo kordhay hantidaasi waa maxay gaari ayaa inoo soo kordhay qiimihiisu yahay 15,000 gaari 15,000 ayaa inoo soo kordhay keeshkii aanu haysanay waxaa ka go-ay 2,000 ayaa ka go-ay oo 2,000 waanu bixinay waxaa muqaabilkii markaa aanu helnay annagana gaari 15,000 gaaraya haddaba lacagtii inteedii kale waxaa 13,000 ayaa jirtay oo notice payable ah account warqad ayaanu bixinay oo dafacnay kambiyaalo ayaanu qornay kambiyaalahaasi waa notice payable oo qiimihiisu gaaraya 13,000 haddaba equality sida loo ilaaliyo notice payable 13,000 buu noqday marka 8,000 marka lagu daro owners equity waxay wada noqotay total amountiga aanu ku haysano dhanka kan waa 20,000 asset kanagiina waxa weeye waa 20,000 maxaa yeelay 3,500 2,000 oo down payment baa ka baxday markaasaa darteed waxaa inoo haray 3,500 laakiin total amountiga aanu total equip treega aanu helnay ayaa qiimihiisu wuxuu yahay 15,000 haddaba isu soo ururinta amountiyadaasi hantida waa inay la ekaataa xuquuqda dibaddan laga leeyahay iyo xuquuqda nimankan Salman iyo familigiisii ay kambaniga kan Winstar ay investigareeyeen haddaba 20,000 waxay la eg tahay 20,000 On May 11, Salman purchased some repair parties for $300 on account. Salman bishii May 11keedii waxa uu soo iibsaday some repair parties qalab wax lagu repair gareeyo ayuu soo iibsaday qalabkaasi waa 300 marka tools and equipmentigii ayuu markaasi halkaa ku dirsoomay markaasi waxaa inoo soo kordhay markaa saad arkayso mar waliba accountka isbedelka ku dhacayo wuxuu inagu siinayaa redka marka halkii 2,500 ahayd 300 ayaa ku korortay oo la soco hadba warqadda aad joogto markaa ku eeg midba midda kale say uga dambeysay marka waxaad arkaysaa dhankan kale waxaa noo soo kordhay iyadana oo xuquuq ahaan oo xuquuqda dibadda ku soo kordhay accounts payable oo ah $300
haddaba total liabilitieski waxay noqdeen 13,300 capitalkanagii waa sidiisii waa 8,000 waayo saanu soo sheegnay capitalka waxa uu ku kordhaa ama uu ku nuqsaamaa waanu ka soo hadalnay